markaa soo baxo ee aan u soo dhaqaaqo markaa magaalada Garowe kadibna aan u soo dhaqaaqo magaalada Xamar ama Muqdisho saa u taqaanaan waxa iga hor imanaya markaa wax la yiraahdo hujuum ama wax la yiraahdo tagin Axmedow oo waayo dhibaatooyin fara badan baa ka jira nolol adag baa ka jirta runtii waa meel aan lahayn meel isku soo dhaweynaya aan lahayn laakiin markii aan imid dadka halkaas sida fikradda qabay laftoodu waa dad aniga ila mid ah oo aan wali ka soo bixin deegaankii iyo halkii ay ku noolaayeen ee markaa nabad ahayd marka waxay aaminsan yihiin waxyaabaha inta badan ay media ka maqlaan ama media ay ka dhageystaan sida dadkeena qurba joogtaaba had iyo jeer warar dhiila loo gaarsiiyo warar dhiila waxba la dilay waxba la dhacay waxba la boobay marka qofku wuxuu aaminayaa isaga laftiisu war meeshan aad ku sii socotaa hadii ay bilaayadan la sheegaya ka jirto maxaa ku geynay cabsi baa ku gelaysa marka laakiin qofka go'aanka isagu qaadanaya ee ku dhiiranaya ee marka isagu go'aan isaga u gaar qaata wuxuu helayaa wuxuu dhaxlayaa marka natiijo runtii qurux badan oo ah inuu meeshii ka warkeeno soo arka xaqiiqada jirta soo arka wadaniga jacaylka iyo Soomaali jacaylka soo arka dad runtii soo dhaweynayo runtii ku faraxsan marka in loo yimaado marka maalintii aan anigu Muqdisho imid ilaa maanta wax dhibaato kala ma kulmin alxamdulillah waan leeyahay kalamana kulmi doono inta aan joogo waxaan aad u jecelahay marka dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurba joogta ku soo noqda deegaankiina inaan idhaahdo ku soo noqda magaaladiini way wadankiina inagu inoo baahan yahay wadankeenu inaga marka wax ka bedeli karna waxna ku soo kordhin karna oo fikradihi aynu dadka gudaha jooga wadankan waxa leeyahay waxbarashada ku dadaala oo dabcan ku dadaala dhaqanka wanaagsan ku dadaala isku xidhnaanta ku dadaala isku duubnaanta ku dadaala inaad idinku is horumarisaan si marka loogu soo xiiso deegaankeeni iyo magaaladeeni waxaan aad u jecelahay magaalo kasto magaalooyinka Soomaaliyeed kamida inay camiranto oo ay weynaato oo ay runtii isku tashato isku filaato inaynu aragno oo dadkeeduna ay yihiin dad soo jeeda isla markaana jecel inay horumar haddaba waxyaabihii ugu la yaabka badnaa haddii aan ka sheekeeyo intii runtii aan joogay magaalada Muqdisho aan la kulmay haddii aan idin soo gudbiyo waxyaabaha ugu la yaabka badan waxa kamida luqadda oo kale lahjada aad baynu kala lahjad weyn oo Soomaali baynu ku wada hadlaynaa laakiin hadii iyo jeer haddana waxa jira ismaan dhaaf reer waqooyiga iyo u dhaxeeya reer koonfurka oo hadii jeer markaad wax dalbanayso xagga cuntooyinka oo kale iyo hoteelada ama maqaaxiyaha ama ba ugu yaraan cabitaanada kala duwan ama cuntooyinka la cuno ee normalka ah ee maalinlaha luqad Talyaaniga ku dhex jirta qaybta koonfurta qaybta waqooyigana ama English ba ku dhex jira ama wada waa Soomaaliga fasiix ah ee marka reer waqooyiga marka taas waxay keentay ismaan dhaaf inaan isfahmi weyno dadka reer Muqdisho oo in far badan loo kala turjumo oo markaan 2-3 jeer ku celiyo qofkii aan isfahana marka dambe ama ugu yaraan ba shayga inaan taabto ama aan sawirkiisa tuso ama aan taabto ay noqoto taana lama yaabaniyo qofka reer koonfurka markuu waqooyi yimaado ama Hargeysa u yimaado in far badan ba isaga laftiisa u baahan yahay turjumaan ama qof saxa ama qof la socda oo marka wixii uu dalbanayo marka waxa aniga ay caawiyay oo marka in badan ay garab taagnaa dhalinyarada Soomaaliyeed halkan aan ugu yimid oo walaalahay oo asxaabtayda oo shaqana runtii ay naga dhaxayso dabcan walaalahay qaaliya waxay iga saacideen marka inaan in badan fahmo dhaxgalka bulshada iyo sida loo wada nool yahay iyo sida ay magaaladu u dhaqmaysaba marka runtii qof kasto iman doona waxaan leeyahay lahjada iska soo yardhis oo lahjada koonfurta bal wax ka soo yardhis intaadan iman ka hor si aad in badan isku fahantaan waliba dhinaca cuntooyinka iyo waliba dhinaca gaadiidka iyo lacagta waa la isla fahmiyo ama dollar ama shilin ayaa la isticmaalaya shilinkana hore la iskaga baran karaa runtii dhacdooyinka marka aan kala kulmay kala waxa kamida tusaalahaan oo kale dadka reer Muqdisho hadii jeer ma baxaan ama socodkooda uu yeeriya cabsi darteed macna magaaladii bay ka warhayaan xaaladihii bay ka wada baqayaan laakiin anaga reer waqooyi baanu nahay fadhi badan oo maanaan baran cabsi badan anaguma jirto deegaan nabadanu ka nimid socodkayga badan marka hadii jeer wadnaay farta ku ay war nimankii maxaa la oran doonaa war halkeed ka dhacdeen war soo noqdo war gurigii ma joogtaan war habixina bay dadku inta badan ku oranayaan talooyin ahaan ku siinayaan meelaha la fadhiisanina waxa laga yaabaa anagu haddaan dhalinyarada reer waqooyi nahay intaanu suuqa u baxno inaanu dabcan iska leeyarsano oo maqaaxiyo hortood iska fadhiisano halka ku sheekaysano oo waqti ku wada qaadano laakiin reer koonfurku way ku adagtay inay taas sameeyaan waxyaabaha marka aan ku aragnay bay kamid ahayd waxyaabaha kale cajiibka ee magaalada Muqdisho runtii intii aan joogaan ku arkay waa magaalada dalxiiska ku wacan oo aad iyo aad ugu haboon in lagu dameeshleeyo ama lagu dalxiiso oo waxay leedahay goobo kala duwan oo soo dhaweynaya xeebtii baa ku dhex taala magaaladii oo magaalada saaran Liida Beach iyo meelaha hareeraheedii waxa kale oo soo dhaweynaya hoteelo runtii aad loo naqshadeeyay ama loo design gareeyay oo ku haboon marka in iyagana lagu caweeyo waxa kale oo runtii ku yaala beero waaweyn oo dhalinyarada iyo waayeelka waalidka iyo carruurta ay waqti ku soo wada qaataan oo runtii ay ku soo damaashaadaan
oo iyagana aad looga shaqeeyay marka taasina waxay soo jiidanaysaa dalxiisayaal fara badan waxaa kaloo soo jiidanaysaa Soomaalidii kale markaa magaalada ka maqnayd inay magaaladii soo jeclaystaan oo ay yimaadaan waan uga mahad celinaynaa wanaaga iyo markaa dadaalka ay sameeyeen aad baad mahadsantiin maanta barnaamijkeena intaas aan ku soo koobi doonaa wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh isma dhaafna insha Allah